iyadoo cudurka coronavirus uu ku sii siqayo wadamada Afrika ee saboolka ah sida Soomaaliya ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu hakinaya dhaqaalihii Mareykanka uu siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu yaqaanaa midabta koor iyo cunsuriyad gaamurtay. shakhsi walba oo ay kala aragti duwanaadaan alaaba waxa uu uga argoostaa sida ugu arxanka daran. waxaa lagu sheegaa inuu yahay cunsuri uusan jeclayn dhaqdhaqaaqa dadka isaga ka midab duwan. waxa uu dhaliilaa aqoontooda, kartidooda, waxqabadkooda iyo waayo aragnimadooda intaba. daliisha iyo xumaanta teeda ugu liidatana waxa uu isticmaalaa madaxda midabka madow. tusaale, intaan xilka madaxweynenimada loo dhaarin bishii koowaad sanadkii 2017 ayuu cay iyo cambaarayn isugu daray John Lewis oo ka tirsan Koongareeska dalka Mareykanka isla markaana ka mid ah dadka u soo halgamay xuquuqda dadka madmadow ee dalkan Mareykanka. sanadkii tegay ee 2019 mar kale wuxuu dhaliil iyo dhaleecayn isugu daray Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed lagana soo doorto gobolka Minnesota. halka ugama uusan harin ee waxa uu ugu goodiyey in dib loogu celiyo meeshii xumayd ee ay ka timid, waa sida hadalka uu u dhigay. iminka madaxweyne Trump ayaa ku jira dirirtii ugu adkeyd ee siyaasadeed. dadaal badanna waxa uu ugu jiraa in dib loogu soo doorto tartanka madaxweynenimada doorashada dalkan Mareykanka. ka hor cudurka COVID-19, dad badan oo siyaasadda ka faalloodo ayaa sii odorosay inuu si fudud ugu guuleysan doono doorashada xilka madaxweynenimada mar kale madaxweyne Donald Trump. si kastaba, cudurkan COVID-19 ayaa hal mar bedelay saadaashaas. cudurka ayaa bannaanka soo dhigay maamul xumada iyo isla weynida madaxweynahan mayalka adag. Donald Trump ayaa lagu yaqaanaa inuusan garowsan khaladaadkiisa. haddaba, si uu dhaliisha ugu meeldayo ayuu marar badan isku dayay inuu marin habaabiyo shacabka Mareykanka. waxa uuna markii hore eedeeyey oo eedda dusha ka saarayay gobernatorayaasha gobolada cudurkan sida weyn uu u saameeyey sida gobolka Washington. eedda gobernatorayaasha ayaa gaari weyday meel dheer. haddana madaxweynaha Mareykanka ayaa dhaliisha la beegsaday hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO iyo maamulaheeda Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dr. Ghebreyesus waa dhakhtar caafimaad wuxuuna ahaan jiray wasiirkii hore ee caafimaadka ee dowladda federaalka Itoobiya. madaxweyne Donald Trump waxaa dhibay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in mas-uulka ugu sarreeya hay'addan uu ka soo jeedo qaaradda Afrika. sidaas daraaddeed, madaxweyne Donald Trump ayaa go'aansaday inuu dhaliisha iyo dhibaatooyinka ka dhashay coronavirus dusha uga tuuro hay'adda caafimaadka adduunka iyo madaxdeeda. The World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. madaxweynuhu si uu u fuliyo dhagartiisa ku qotonta nacaybka, waxa uu wacad ku maray inuu jari doono dakhliga dalkan Mareykanka uu ku kabo dhaqaalaha hay'adda caafimaadka. sanadkii horena hay'addaasi waxa uu siiyey 400 milyan, taasoo u dhiganta in ka yar 15% lacagta soo gasha hay'adda sanadkii. hay-addan ayaa soo saarta cilmi baarista cudurrada adduunka. in badanna wadamada qaaradda Afrika ayay kala shaqaysaa kaabidda laamaha caafimaadka. si kastaba, dadka siyaasadda oo dorosa ayaa waxa ay u arkaan in eed iska rogidda madaxweyne Donald Trump iyo in uu marba geesaha ku xoqdo aanay waxba ka tarayn guuldarrada ku soo fool leh doorashadiisa. Maxamuud Dulyadayn, Somali American Media, Minnesota.